الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلام كدب أنا سلطان عبد القوي قاسم وصلدقي يقول هذا الدقن جوجا مقالة النرويج وحان تهنية شرف هو الدرية marka koowaad ciidamada geesiyaasha ah ee Puntland iska caawiyay cadawgii ku soo duulay waxaan aad ugu faraxsanahay sida ay isaga caabiyeen cadawgii ku soo duulay oo wadankooda ku soo duulay sida ay isaga caabiyeen ayaan ku faraxsanahay uguna tahniyeynayaa waana u duceynayaa in ilaahay kor ka dhigo waxaan kale oo u tahniyeynayaa dawladda dhexe madaxda u yahay madaxweyne xasan ayaguna gurmadka ay u direen waa ku mahadsan yihiin sidaas waxaan ula jeedaa anigu waxaan ahay nin duub oo Soomaaliyeed waxaan rabaa Soomaalida meeshii wax ka dhacaanba in loo gurmado Soomaali waa isku mid waa walaal cadawgooduna waa mid noloshooduna waa mid waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed codadaha iyo xasadka iyo xaqdiga iyo xumaanta la kala dhaxgeliyo inay iska dhaafaan oo walaaltinimadooda iyo sharaftooda iyo midnimadooda iyo dawladnimadooda iyo muslimnimadooda iyo wadajirkooda ay soo ceshadaan oo meeshii dhibaato ka dhacdaba ay u wada gurmadaan wadanka annaga iska leh wadanka Soomaaliya leh edegtaas yartaaha naga dhaxaysa walaalayaal Soomaaliyey edegtaa yartaaha naga dhaxaysa walaalaan nahay annaga iska leh isku mid si isku mid ah oo walaaltinimo ah oo dadnimo ah aan u wada shaqaysano cadawgana aan isaga ilaalino. Bismillahir Rahmanir Rahiim magacyo badan baan leeyahay kan ugu dambeeya waa Cabdiqeen Axmed Warsame kuwii ugu horeeyana waa Qaasim Maxamed Cali Dheere aan Norway baan joogaa American ka imid vacation baan hadda ku joogaa Afrika u socdaa waxaanu maqalay dhibaatadii joogtada ahayd inay dhinacaan hadda Puntland yaamaha ay walaaqayso shaqo fiican oo aan ugu hambalyeeyno wixii Soomaaliya oo dhan ay qabteen balse dadka la qabtay oo dhalinyarada la soo lumiyay kulli Puntland aqli bay ku shaqaysaa nidaam fiican bay ku shaqaysaa in mataqaanay ilmihii yaryara dhaqan celin iyo Soomaalnimo kulli waxaan malaynayaa ilmahaas inay yihiin ilmaheen oo kale weyna yihiin meeshii lagu dhaqan celin lahaa kulleejkii lagu xareyn lahaa in loo diyaariyo raggii waaweyna raggii soo diray iyo qoladii ka dambeysana waa la garanayaa xiriirka in la xiriiriyo hawshan halka laga wado in laguna daydo inta kale oo la mida iyo inta meelaha laga soo dirayna la daba galo oo laga soo wada aruuriyo marka hambalyo wadin hambalyayna dadka shaqada soo qabto way garab taaganahay qoor xira ku beeshay al-shabaab ku heshiin meeno inay mataqaana dadkii iyo dalkii ay sida walaaqaan marka salaamu calaykum horta waxaan leeyahay wixii Puntland ka dhacay ay soo maleegeen nimanka leeyahdo shabaab gardarracad oo qaawan bay ahayd oo shacabka Puntland iyo shacabka Soomaaliya lidii ku ah waxaan filayaa jawaabta ku habooneed ba ciidanka Puntland ay siiyeen walow ay soo marin habaabiyeen nimanka shabaab caruur yar yar ah oo masaakiin ah qaarna sida TV-dan ka daawan waaridkood laga soo xaday marka waxaan aaminsanahay caruurta dawladda Puntland inay si fiican u dhaqmi doonto dhaqan cali fiican u sameyn doonto waxbarasho u sameyn doonto nimankii soo marin habaabiyeen caruurtana soo khalday in jawaabtii ku habooneed la siiyaan aaminsanahay waa nimanka Soomaaliya dhibka ku haya muqdisho dhibaatada ku haya ardada laaya maalin walba suxufiyiinta dila waxgaradka iyo siyaasiyiinta laaya nimankaas waa cadow Soomaaliyeed ayagana mas'uulka baan ugu aaminsanahay joogitaanka ciidamada shisheeye ay joogan Soomaaliya
haddii dowladda federaalka la amni gelin lahaa oo ay dhibaatada ka dayn lahayn maanta waan baahneen Amison marka nimankaasi waxaan qabaa jawaabta ku habooneed baa la siiyay waxaan filayaa Soomaaliya meel walbana hadday Jubbaland ahaan lahayd hadday ahaan lahayd koonfur galbeed iyo dowladda federaalka in jawaabtii la mid ah ama ka xanuun badan nimanka la siiyo marka ugu horeysa waan ku salaamayaa Rasto iyo TV-ga qaranka ee barnaamijkan aad diyaarinaysid waxaan marka ugu horeysa salaamayaa ummadda Soomaaliyeed dhamaantood meel ay joogaanba waxaan kaloo u mahadnaqayaa oo bogaadin iyo hambalyo u dirayaa ciidamada Puntland iyo dowladda Puntland iyo shacab weynaha reer Puntland dhammaan meel kastoo ay joogaan guusha ay gaareen iyo dagaalka ay la galeen al-shabaab aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waana taageersanahay caruurta dagaalka la geliyay ee yeerka iyo TV-yada aan ka daawanayna Puntland waxaa laga rabaa si sharaf iyo karaamada inay wada dhaqmaan in la mariyo caruurnimadooda wixii la geliyay in laga saaro caruurtoodnimadooda waa caruurteeni waa dad Soomaaliyeed waa ilmaheeni in la dhaqan celiyo oo tartiib loola dhaqmo oo dadkii dhalay lala xiriiro oo caafimaadkooda iyo raashinkooda iyo jiifkooda la wanaajiyo oo hadal wanaagsan lagula dhaqmo oo la soo dhaweeyo saasaan ku talinayaa anigu Puntland shacabkeeda hambalyo anoo ku taagan yihiin xaq sababtoo ah nin dhulkaaga ku soo duulay oo dulmi kuuga yimid waajibkii ay lahaayeen aad mariseen saasaa laydinka rabaa mar walba inaad u taagantihiin ciyaalka yaryar oo la qabtayna waxaan leeyahay Puntland awalba laydinku yaqaaniyo tiirinaad nima waaweyn intaa qabatay inaad haysaan ciyaalka yarkaana wax bara oo haya oo meel darbi inta u dhistan ku xareeya ay wax ku bartaan nimanka waaweynna sharciga ay mareen in la marsiiyo wasqiirada madaxweynaha haya oo ninka sariflaha kamid yahay walaad dadkaygii way dadkiisiiba ku soo duulay muxuu ka soo doon sharciga hal maray ku waaweyn wax munaasab ma aha oo kulli deegaamada kaliya ee hadda nabad ku islaxday ka mid tahay Puntland marka meel walba horta inay nidaamka jireen oo nidaamku isu difaacdo waa wax waajiba laakiin dhalinyarada yaryar ee la soo qalday maanta gacanta dawladda ku jiro waxa waajib ka saaran yahay maamulka Puntland inay dadka ilmaha iyaga inuu saxayaan inay soo dhaweeyaan inay dib habeen ku sameeyaan inay wixii loo soo gudbiyay wax ka duwan ay ku shubaan inay wax barasho iyo wax u raadiyaan inay maartay caafimaadkooda iyo amnigooda ay sugaan waajib ka saaran way Puntland dadkan la qabtay hadda ay yiraahdaan laakiin dad al-shabaab gacanta ku haysa ku jira la soo tababaray ma dad isla markii la sii deyn karaa mise waxa leedahay hal hayo wixii lagu shubay laga shubo ma kulay waa dad marka hore waa in la carbiyo weey waa in nidaam horta la sugo ilmahan laakiin horta wax la yeela ma aha ilma yar oo dhalinyaro oo ilmahan oo kala weey mar haddii saas yihiin waxa munaasab ah in ilmahaasi wacyigelin hor la geliyo kadibna maartay meelaha ku habboon iyo qaabka wax loo bar lagu dadaal anigoo ah xasan maxamed nuur xasanoos waxaan maantay oo 23 bisha saddexaad ay tahay anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca jaaliyadda Puntland jaaliyadeeda degan dadka Norway ee Oslo waxaan si gaar ah aan rabnaa inaan si kooban uga hadalno marxaladihii baryahan ka socday dawlad goboleedka Puntland ama Puntland State of Somalia taasoo ay ahayd sidii aad ka arkayseen warbaahinta sidii aad ka arkayseen website-yada nimankii sharwadayaasha ahaa oo Soomaaliya ama nabadiidka ahaa oo ummadda Soomaaliyeed runtii nolol iyo nabadgelyaba u diiday oo koonfurta Soomaaliya iyo guud ahaan Soomaaliya iyo caalamkaba dhib badan ku haya inay baryahan isku dayeen inay Puntland ay isiraahdeen waa idin dabacsan tahay wixii aad koonfur ku hayseen inay u wareejiyaan xagga ilaahay mahadiis weeye gardaraamo guuleystaa la yiri ilaahay baa guusha siiyay waxaan si gaar ah oo kaliya niyada ugu hambalyeynaa ciidamada geesiyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan dawladda Puntland ciidamadeeda aadka u tababaran iyo shacbigooda oo ahaa garbihii ciidamadaasi ay ku guurayeen oo aan u kala harin sidii midnimada lahayd annagoo ka xun dad dhalinyaro ah oo magaca Soomaaliyeed sheeganaya ama sumad dad islaam wata inay falalka noocaas ka dhacaan hadeed waxa Soomaalidu ku mahmaahda hadii malag dhawaaqayo miidaan dhagama leh waa loo digay dadkaasi way marin habaabiyeen waa sharwadayaal inay yihiin shaki kuma jiro
dhiig kasta oo dad muslima ama dhiig dad bila'aadana wax lagu farxa maahan laakiin waxaan u aragnaa inay ka maarmuwaa tahay oo dad baas oo meel ay ku xiran yihiin iyo meel laga soo abaabulaya aan la garanayn iyo nabadgelyo darro loo soo sarfina laga soo xawilahayo meelaha ka baxsan Soomaaliya inay tahay oo caalamkoo dhan subcad xumo nabadgelyo xumo wax walba oo dhibaato ah oo aad iyo aad ummad kasta xasiloonideeda ee ku ah runtii wax lidiya waa wax aad u xun qof walba mar buu dhimanayaa ilaahay waxaan ka baryayaa kuwii ku dhaawacmay ilaahay inuu caafiyo kuwii ku dhintana ilaahay inuu u naxariisto waayo xaq bay ku dhinteen waayo diinteena islaamkaaba oranaysa dayuus buu noqonayaa ninkii caruurtiisa iyo cirdigiisa iyo sharafkiisa ka carara intaasaan uga baxayaa waxaan qabaa oo aan la iska dhagatiri karin inay ka dhex muuqdeen sidaan ka arkaynay qalabka warbaahinta dad aad u da'yar oo aad u da'yar meesha kama marna dadka in la khalday kolley Puntland dad odayaal ah aqoon-yahan culumo dawlad bay leedahay waxaan filayaa investigation iyo baaris baa dhacaysa waxaan filayaa mas'uuliyaduna dadkaasi saaranto madaxweyne Cabdiweli ugu horeeyo isimada culumaa diinka odayaasha haddii ay ka waantoobeen inkastoo dagaal lagu qabtay hadday ka waantoobaan anigu waxaan aaminsanahay dadkaas da'da yar oo caruurta ah waxaan qabaa haddii aqliga alla u soo celiyo oo dadkii khalday ay ka soo noqon karaan oo innaba ay iyagoo aan isdhiibin qofka la qabto waa dambiile qofka asagoo dagaalamayo ficilkii ku jira haddii la qabto haddana waxaan meesha ka marayn inay dhalinyaro Soomaaliyeed yihiin anigu waxaan qabaa haddii la mayri karo oo la dhaqan celin karo inaan sida ugu dhaqsaha badan in si badan naxariis badan loo fiiriyo oo aysan ka hoos bixin waayo waa jiil soo koraya waa dhalinyaro Soomaaliyeed waa la khalday anigu waxaan qabaa in il naxariis la in lagu fiirsho aniga kale waxay la tahay duulimaad ama Soomaali ha noqdo ama qof kale ha noqdo qof walba oo wadan nabad ka jirto ku soo duulay xaq darraan u arkaa laakiin caruurta Soomaalida ee la qabtay Soomaali waa Soomaali meesha joogta cunug yar oo ma garanaysa maskaxda laga soo xaday oo dagaal soo aaday haddii la qabtay ama wis dhiibayba anigu waxaan u arkaa wixii caruurta lagu shubay in laga bisho caruurtaas in la xanaaneeyo xabsi la geliyo ama tareedin loo furo in caruurtaas wax barasho ama ma garanaysa wixii marka maslaxa oo ay waa ubadkeeni oo qalad ku yimid marka in waxaan jeclaan lahaa aniga kolley shakhsi ahaanteeda ama fikrad ahaan aan ku darsan lahaa in caruurtaasi loo furo training si ay berri u noqdaan mustaqbalkii wadanka aad baan ma garanaysaa ugu hambalyeynaa dawladda haddaan reer Norway dawladda maamulka Puntland iyo ciidamada Puntland shacabka Puntland iyo dhamaan sidii wanaagsaneyd ee ay isaga caabiyeen qolihii burcadiimeedka ahaa weerarka ku soo qaaday Puntland taasi waa taas tan kale caruuro in lagu qabtana kulay waanu aragnay meesha xaquuqna waa ay jirtaa dabcan caruuro weeye anaguna waalid waa nahay oo caruuro waanu leenahay waxaanu codsanaynaa marka caruuraha si gaara in loo eego oo maaragtay dhaqan celin loogu sameeyo oo xeryo gaara lagu xanaaneeyo oo si ma garanaysaa wixii ay soo mareen oo dhibaato ahaa looga dhaqo oo looga bedelo maskaxiyan iyo jir ahaanba hawshana meesha ka sii wada midnimada meesha ka sii wada waxaad u tihiin guul Soomaali oo dhan Puntland kaliya ma aha in la idinkaga daydo midnimadii aad muujiseen si la isaga celiyo dadkan wadankii burcadiimeedka ah xooga ku qabsaday خير بان idin rajeenayaa assalaamu calaykum inkastoo dadkii lala dagaalmay al-shabaab yihiin haddana dad waxa u badnaa yar Soomaaliyeed oo da'da 10 jir ah adigu bal fikradaada nin dalkii degan oo reer Norway tahay aqoon-yahan ee kamid ah jaaliyadda Puntland ee dalka Norway xaruntan aan soo boqornay maanta nasiib wanaag aan ku kulannay magacaaga adoo nooga bilaabay fikradaadka bismillaahir rahmaanir rahiim magacaaga Cumar weeye waa ku faraxsanahay guulaha ay gaareen shacabka iyo maamulka Puntland iyo ciidamada qalabka sida oo hambalyeynaya waana guul u soo ayatay Puntland iyo ummadda Soomaaliyeedba ciidamada la qabtay ama dhalinyarada la qabtayna waxaan kula talinayaa maamulka Puntland inuu sameeyo dhaqan celin iyo waxbarasho maadaama ay ka yar yihiin daadii loogu talagalay ciidamada ama qofka askariga
saasaan leeyahay aragtideeda anigu waan ka dhiibanayo dagaalkii waxaa weeye kole qof walba oo Soomaaliya uu fahmi karaa dhul nabada ninka soo aaday inaanu waraaq ka talinin ee uu rabo inuu dhaha ka rido baanu arkaa Puntland ilaahay baana ka qabtay iyaguna way iska caabiyeen taa markaan ka soo tago dadka la qabtay horteeda maxaabiista waxaa wanaagsan si wanaagsan in loola dhaqmo maxaabiista kuwana way ka duwan yihiin maxaabiista waayo waa ciyaal yaryar oo Soomaali ah oo maartay been loo soo sheegay oo reerahoodii laga soo xaday waxaan ku talin lahaa anigu ciyaalkaas in iskool inta loo sameeyo iskoolkaas dhaqan celin looga dhigo waxbarasho loogu sameeyo inta aqligooda uu ka taam noqonayo oo aan la siri karinin lagu gaarsiiyo waayo Soomaalidu waxa weeyaan dhaqan waxay u leedahay inaysan ciyaalka iyo maatada toona aysan wax u dhiminin ee ay wanaajiso dabcan Puntlandna waa dal Soomaaliyeed waana dal nabad ah waana dal wanaagsan walaal haddii aragtidayda Soomaalinimo aan ka dhiibto anigu arrintaas horta marka waa laba arrimood weeye waxna waa dagaalka waxna waa waxa lagu qabtay dagaalkaas al-shabaab ay ku soo qaaday gobolada Puntland iyo dhul nabad ah iyo dad Soomaaliyeed oo muslim ah oo aan waxna galabsan oo meel degan oo guryahooda lagu soo weeraray sidii loo galay يعني si wanaagsan bay ahayd reer Puntland waxa weeye si guul iyo sharaf iyo karaama ku jirtay iyo la dhaqmeen arintaasna aad baan u soo dhaweynaynaa waxa soo hartay carruurta yaryar oo Soomaaliyeed oo saqiirka ah oo aan hooyadoodii iyo aabahood ama laga soo afduubtay ama si kastaba ha ahaatee yani waxa weeye meesha lagu soo qabtay carruurtan yaryar waa saqiir weeye waa carruur Soomaaliyeed weeye waa carruur aan dambi lahayn weeye waa carruur si xun yani dad u isticmaaleen weeye waxa loo baahan yahay Puntland inay mas'uuliyadii ummadda Soomaaliyeed oo carruurtaas ay lahayd inay mariso inaan waxa way mataqaanaa dhibaato aan lagu sameeynin in college la geeyo in yani dhaqan celin dib loogu sameeyo in ilmaha kan waxa khaldan lagu soo shubay waa ubadkii Soomaaliyeed oo bari mustaqbalka Soomaaliyeed ah weeye in magala si wanaagsan iyo kuwa hadda noo joogo guryaha noo joogo oo kale in loola dhaqmo oo si wanaagsan loola dhaqmo si yani mataqaanaa kuwa macaal gacantooda ku jira oo hadda al-shabaab gacantooda ku jira oo kaleeto example fiican ay ugu noqoto dadka Soomaaliyeedna wax wanaagsan loo tuso oo ay arrimaha noocan oo kaleeto ah ay waalidka iyo dadka Soomaaliyeed ba isaga kaashadaan assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baan u salaamaya dhammaan wadda Soomaaliyeed meel kasta dunida kaga nool yihiin dhibaatada dhacday waan ognahay iyo dagaalada dhacay waan ognahay laakiin carruurta yaryar la sheegay lagu soo qabtay dagaalka waxaan oran lahaa carruurta la wacyi galiyo waxba lagu shubay wixii laga shubo dhibaatadana halkaas ay loogu xaliyo inaan maxaan ku raad dil lagu xalinin laakiin ilmaha yaryar waa ilmo Soomaaliyeed waa ilmo carruurteeni marka waxaan oran lahaa waxba lagu shubay wixii laga bedelo oo la wacyi galiyo oo hala baro maxaan ku raad dhaqanka dadnimada bini'aadamtinimada iyo diinta rasmigiisa uu ogashahay diintiisa uu ogashahay inaan dilku u xaraan yahay fanaanzaki adigu fanaan baad tahay anigu wariyanahay al-shabaab wadaadkii dilaan wariyihii dilaan fanaankii dilaan habartii dilaan odagii dilaan carruurtii dilaan iskuuleedii dilaan nimankaas bal erey ka de anigu waxaan leeyahay waa masiibo ilaahay oo shaydaan inoo soo diray ilaahay waxuu looma nasbeeyo annagu haddaan dee fanaaniinna iyo haddaan shacabkii nahayba qof Soomaaliyeed inuu naga dhinto ma ogolin waxaan leeyahay waan wada ognahay aafadooda dhibaatadooda waan wada ognahay dee ilaahay ha soo hadeeyin baan leenahay بسم الله الرحمن الرحيم magacay waa mahad cambaashe runtii waxaan anigu leeyahay horta aad baan ugu mahad celinaya ciidanka Puntland iyo shacabka Puntland geesinimada ay sameeyeen mideeda kale si fiican bay sameeyeen sharci bay u lahayn iska difaacaan kooxaha qawaariijta ku soo duushay al-shabaab iyo wixii lamid ah argixisada waxaana leeyahay ciyaalkii yaraa ee la soo khalday ee qoladan qawaariijtu soo khalday waa inaan dambi lagu qaadin waa in dhaqan celis lagu sameeyaa ha laga daayo xabsi iyo dilba dadkana ha lagu daro oo dhaqan celis lagu sameeyo saasaan leeyahay waxyaalo sharci iyo dambi midna ma qabto iyaga laftigooda la soo qalday shacabka Puntland oo mahad celinaya iyo dawladda Puntland iyo dadka Puntland ba difaacay qawaariijta iska difaaceen iyo al-shabaab iyo argixisada dareenkayga waxa weeye aad ayaan uga xunaa carruurta aad la soo qalday marka waxaan leenahay dawladda Puntland iyo madaxda Puntland waxaan codsanaynaa in dhalinyarada Soomaaliyeed macnaha aan dambiga macnaha maadaama la soo khalday aan lagu qaadin maanta ay horta maxay tahay Puntland in laga sifeeyay dadkii xaq jirka ahaa aad baan ugu faraxsanahay maadaama laga sifeeyay horta nimanka waaweyn oo ma aragtay lagu qabtay
in la marsiiyo sida uu yahay xaqu aad baan ugu faraxsanahay waana ku ambafaalayn lahaa dadkii waa kula talin lahaa dadkii soo qabtay in la mariyo xaq waxa ay leeyihiin caruurta yaryar waa la soo khalday hooyadood baa doonaysa waa anigoo kaleeto hooyadood wax badan bay waxa laga yaabaa ay cunug caruurta yarka doonaysay oo meel ay ku sugan yihiin ay waayeen marka waxaan maxaa tafaraynaa dadka reer Puntland in ay caruurta yaryar meel inta u furaan ay ku xanaaneeyaan oo ay tusaan xaqu waxa uu yahay inayna arrintaani wax socon kara ayna ahayn oo aynan ku soo duulin wadankooda sababtoo ah wadan kaleeto ay leeyihiin caruurta yar ma jiraan waa la soo qalday hooyooyinkood baa raadinayay waalidkood bay ka baxsadeen dhibaato badan bay mareen ilmaha yaryarkaan waxaan qabaa qoriga ma qaadi karaan maadaama ayna qoriga qaadi karin waa la soo qalday in caruurta dib loo celiyo oo meel loo furo oo aan la dilin oo la dhaqaaleeyo oo laga dhaqo wixii ay ku shubeen raggii horeeto ay ku shubeen arrintaas aan fari lahaa ragga reer Puntland waa dad aqliga u saaxiiba wayna sameynayaan cid la sii taabanaysa midna ma jiraan haddana waxaan oran lahaa horta dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho in ragga dib loogu noqdo oo la yiraahdo raggii lagu qabto dagaalkana la marsiiyo waxa ay xaq u leeyihiin ragga kaleetana loo sheega ragga isu soo dhiiba inaan la taaban oo ay la geeyo meelaha ay ma aragto markii hore ka soo jeedeen oo meel lagu hayo ilaa inta laga dhaqayo maskaxdooda wixii ay sameeyeen magacaygu waa xasan cali cabdi xasan cali gaagaab arrinta aad weydiisay waxaan daawaday meediyaha waan la socday TV-ga waan daawanayay wararka oo dhan waan la socday warbaahinta qaybta electroniga iyo qaybta TV-da fogaan aragga labadaba waan daawanayay waan la socday aad baan uga naxay waxaan caruur aad u daayar yar qaarkood 10 jir baan u maleynayay 12 jir markaad wajigooda aragto dhib badan baa dhacay caruurta waa la soo lugooyay caqliga ayaa laga xaday waxaan u maleynayaa caruurtaasi in ay Puntland maadaama ay maanta gacantooda ku jiraan in ay u samayso mihnado iyo xirfado ay ku shaqaystaan wixii laga shubay ka shubto dib loogu caqli celiyo caruurta madaariskii iskuuladii dib loogu celiyo sabab shabaab min ognahay waa cadowga kaliya hadda Soomaaliya leedahay weeyaan waxa kale oo hambalyeynaya dawladda federaalka Soomaaliya qaybtii waxa ay ka qaatay support gareysay Puntland waxaan ku talin lahaa waxaan ka xumahay ciyaal yaryar oo maskaxdii laga xaday oo Soomaaliyeed aad u daayaan in meesha lagu qabtay ciyaalkaas waxay u baahan yihiin si Soomaalinimo muwaadinimo in la isaga xil saaro sidii dib noloshoodii loogu habeyn lahaa in laga fakaro gacan nabadgelyana la gasho ayaan ku talin lahaa marka hore waxaan u mahadnaqayaa ciidamada geesiyaasha ee Puntland sida geesinimada leh naftooda ugu huray inay dalkooda iyo dadkooda daafacdaan waxaan kale oo u mahadnaqayaa shacabka reer Puntland oo dhammaan aan u kala harin rag iyo dumarba oo ciidamadooda iskarab taagay hadday tahay dawadii hadday tahay biyihii hadday tahay caanihii hadday tahay raashinkii hadday tahay dharkii wax walba ay gabdho u diyaariyeen taana aad iyo aad bay noo dhiirigelisay aad iyo aad baana ugu mahad celinaynaa waxaa kaloo u mahad celinayaa dowladda Puntland oo ciidankeeda dhiirigelin iyo iskarab taag ku samaysay oo dagaalkii si fiican uga qayb qaadatay oo dowlad iyo shacab aan loo kala harin dagaalkii ee ka dhacay bisha 14 Maars Garacad halkaasoo niman sharwalayaal ah oo caruur yar la soo qalday ay u badnaayeen nimankii ku soo duulay Puntland wiilasha yarka la soo qalday oo sharwalayaashu ay soo qaldeen waxaan leeyahay sharciga caalamku waxa uu adduunka uu ka qabo Puntland ha fiiriso raxmana ha ku eegto caruurta yarka ah wixii ay u fidin kadho oo xariisana ha u fidiso marka ugu horeysa waxaan u hambalyeynaya ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer Puntland ee nimankii soo weeraray xaqdarrada ku socday iska dhiciyay ee waajibkooda mariyay baan u hambalyeynaya gaar ahaan ciidamada tan labaad shacabka oo taageeray oo siday tahay muujiyay taageerada buuxda ee dadka ciidamadooda dagaalka ku jiray midda saddexaysa waxa weeye dadka yaryar oo qaan gaarin waxaan u arkaa in laga fiirsado oo dadka reer Puntland ay ka fiirsadaan maxkamadda la saarayaan waqti badan la geliyo laga fakaro waa dhalinyaro la soo majara habaabiyay oo aad u daayar
oo sida xaqiiqda ah yacni haddii aynu runta ma garanaysaa aynu ka daba tegno aynu odhan karno waa dad been loo soo sheegay oo yacni marka aad hadalladooda dheehato aad u fiirsato ama aad ma garanaysaa dhugato yacni wareysiyada laga qaaday waxay leeyihiin oo ay ka siman yihiin dhammaantood waxaana loo soo sheegay inaa waxbarashona la geyn rabo sidaa darteed wax halkaa inooga cad maadaama dhallinyartaasi ay isku magaranaysaa ay ka siman yihiin in waxbarasho magaranaysaa layidhi waa layna geynayaa in la soo lugooyey marka ani fikirkayga haddii aan cabiro waxaan odhan lahaa maadaama dhallinyartaa la majara habaabiyey yaanan macnaha ciqaab adag yaan la saarin